hadda waxaan soo koobi aniga oo waliba aad ugu dhaqsanaya arrimihii saddexda beri meeshan aan u joognay gabagabadoodii iyo wixii aan u aragnay in ay go'aan ay noo yihiin waxaa waaye meeshan aan ku jiraynay inta ka soo bilaabata taariikh 16 taariikh 6 ilaa maanta oo 8 waa maalinka aan imaanay maantana waa 8 saddexdaas beri ayaan ku jirnay fadhigan marka saddexdan beri oo si wanaagsan oo shirkan u socday qayli la'aan buuq la'aan sharaf ayuu u socday marka dadka aad bay ugu mahadsan yihiin sida lidinkugu mahad celiyay nimanka hore hadleen aad baad u mahadsantiin sida wanaagsan oo edabta oo discipline-ka oo sharafta leh oo shirki aad uga soo qayb gasheen haddana aad u dhageysateen waan ka tacsiyeynaynaa annaga oo walaalaheen tacsiye ay ku jiraan aad baan uga xunnahay in oo shirkan na uu socdo ayaga oo ahaa kuwa ka soo qayb galaya shirkan tacsiye waan u tagnay cidii walaalaheen duugtooda waan ka qayb qaadanay haddana saa kagama tagayno annaga oo idil ayaa tagayna wax kasta oo loo baahan yahay oo familigaas u baahan yahay waan ka qayb qaadanaynaa insha Allah dad aan moognahay ama xanuun aan nagu haynin ma yaho waad ogeedeen meeshan saddexdii beri labadii beri hadalku u socday nin kasta oo istaaga wuxuu u duceynay oo u tacsiyeynay cidii dhibka u gaaray dadka markay dhintaan oo la xabaalana waxay sidii aan ka soo gaarnay rasuulka sallallahu alayhi waxa waaye shayga loo sameeyay waxa waaye in loo duceeyo nabigu wuxuu dhihi jiray walaalkiin ama walaashiin u duceey saddexdii beri labadii beri oo la hadlayay waad ogeedeen nin kasta oo meeshan istaaga uu u duceynay waxa waaye dadkii hadlay raggii wax qorayay go'aan oo ilaa 5 qodob ayaa loo arkay inay muhiim tahay inuu ka soo baxay shirkan 5taas qodob oo midda u horeysa ay tahay shirkan wuxuu xaqiijiyay oo maaragtay mar labaad uu xaqiijin haya nin kasta oo ay khuseysano uu u xaqiijin haya dadka consistency-kaas Wajeer South ku noolna uu u xaqiijin haya go'aankii lagu gaaray taariikh 4 January 2022 Habasweyne Lagdima inuu yahay go'aanka rasmiga oo u yaala qoskan go'aankii asaga ahaa oo kii lagu caleema saaray oo lagu soo saaray labada nin oo kale Cabdi Maxamed Salal Maxamed Cadow Aadan iyo Cabdi Maxamed Salal oo u kala taagan Wajeer South Constituency iyo County Deputy Governor Wajeer maqaabul waxa meel all u oo qoskan waxa meel all u go'aanka asaga proposal-kooda siyaasadeed waa kaas oo ay diyaar u yihiin ay u bandhigayaan dadweynaha walaalaha oo ku nool Wajeer South Constituency ku nool oo wadaagna wax kasta ceesho milax aan nahay walaalaha aan nahay wax kasta iyo siyaasad iyo wax kasta oo haysana aan qaybsano madaxnimada aan qabsano oo tolka aan nahay waxaan u soo bandhigaynaa go'aankaanagi aan soo horana aan u keenay in uu sidiisi u yahay go'aankii Lagdima oo taariikh 4 January waxa qodobka labaad in la hagaajiyo la meeleeyo la suurto geliyo committee shaqayso oo arinta iyada iyo wax kasta oo loo baahan yahay oo geedii socodkan looga baahan yahay arinteeda dhamayso committee-daas oo 39 qof ay tahay cadadeeda ay tahay committee-daas oo ka tirsan inta soo socoto oo ka imaanaysa inta soo socoto 24 qof
waxay ka imanayaan qoysaska uu ka kooban yahay qoyskan cid kasta waxay keenay 8 ruux 8kaas oo hablaha ku jiri karaan dhalinyarada ku jiri karaan aqoon-yahankana ay ku jiri karaan waxaa kaloo wehelisa 7 culimada waxaa kaloo wehelisa 8 laga soo qaaday guddiga qaran oo maqaawil National Council 39 ruux 39 qof oo cid go'aankooda wixii kitaabka quraanka ee ka soo haray iyo xadiidka rasuulka wixii ka soo haray oo dhaqan adduun go'aankooda waa waa biyo kama dhacmaan meel laga mari karo male oo qolad waxyaalaha dadka waxay dhahan reer magaalka dhagax laguma qorin dhagax kuma laguma qorin arrintan waa la bedeli karaa go'aanka 39 ruux oo qoyskan u howlgeli doonto go'aankooda dhagax uu ku qoray saasoo gaaraysa dadka iyaga shaqadooda 39 shaqadooda waxa weeye in ay u kurgalaan geedi socodka siyaasadeed oo 2022 in ay dhameeyaan xaliyaan wax kasta oo arrimo siyaasadeed oo qoyskan dhaxdiisa iyo wax la qabsasho xagga siyaasadeed oo tolka kale oo wadanka aan isla leenahay oo walaalaha oon isla degannahay oo wax qabsiga wada leenahay ayaa way shaqadooda iyo countiga Wajeer dadka degan oo dhan in aan ay ma aragtay ragaas ayaa wakiil nooga guddiga asaga qodobkooda labaad oo hooshooda waxa kamid in ay ma aragtay in ay hagaan ay soo afjaraan in ay hagaan oy wax alla wixii dib ay soo afjaraan ay ma aragtay ay jihayaan arrimaha siyaasadeed oo qoyskanito inay jihayaan arrin kasta oo siyaasadeed oo qoyskan inay jihayaan midda labaad oo saddexaad oo shaqadooda waxa kamid in ay xiriir la sameeyaan dawladda dhexe mid hadda joogta 3 bilood daba mid joogi doonto iyo mid dambaba sidii ay dawladda dhalan doonto oo countiga sidii ay u xaqiijiysan lahaayeen inay u helaan howlo shaqooyin ay ugu helaan dadka qoyskan oo shaqalaanta oo na qualified oo shaqalaanta oo shaqooyin inay nafaaskii sidii ay ku heli lahaayeen in ay daba galaan waxa u xilsaaran 33 mitankan qodobka saddexaad waxaan sheegnay committee iyo midnimo go'aankii hore inaan raacayno qodobka saddexaad waxa weeye in la raadiyo la doono la raali geliyo shakhsi kasta oo maqaabul oo qoyskan ka tirsan oo sheeganaya arrin sheeganaya siyaasadeed si loola dhaqmay ama loo tixgelin la'aan ka sheeganaya ama wax siin la'aan ka sheeganaya si kastaba ha ahaatee shakhsi noqoya qoys noqoya oo qoyskan in ay ma aragtay laga daba galo oo la doono oo la raadiyo oo la seehelo oo arrintooda la soo afjaro taariikh 16 intaana la gaarin mitankan wuxuu ma aragtay go'aan ku gaaray oo u ruqseenhaya qoyska uu ruqseenhaya waxa bixinaya ruqsadaas maqaawil bixinaya wuxuu ruqsada uu maqaawil bixinayana waxa waaye in ma aragtay aan yeelana political cooperation dadka saamiga ku leh qabiilaha saamiga ku leh countiga Wajeer iyo constituency Wajeer South taas macnaheedu waxa waaye in aan heshiis la gali karna dadka qoysaska kale oo Wajeer South degan in aan heshiis la gali karna dadka
ما أركتها ummadda kale oo nala degan Wajeer County saamilayda siyaasadeed oo Wajeer County stakeholders la dhahaa kulli in aan tii ay aan u aragna inay muhiim tahay in aan heshiis la gali karno go'aankaas qabiilka waad bixiseen Soomaa ruqsadaas waad bixiseen Soomaa meeshii aan la xirno oo haddaba meel baa la xirtay oo la keeno oo la wado gacan baa siinaysan Soomaa ahlan wasahlan markaas amar ruqsadaas idinka bixiyay ninkii lidin keena oo dhisa lidin yaraada bari waa in hadal kale ka imaanin oo sidii ragiinaas aad u wadeen aad u wadaan soo saasmo assalaamu alaykum okay ugu dambeyntii 39 ruux waxaan sheegnay 24 qayb oo qoyskan ay ka imaanayeen 8 waa 24 toddoba waxay ka imaanayaan culimada 8na waa national committee culimada iyo national committee hadda waa dad qoran 8 cid kasta ka imaanaysa maalinka intaan la gaarin taariikh 14 kulli magacyahooda waa in la hayaa waxaa loo soo gudbinaa chairmanka national committee ama waxa loo soo gudbinaa chairmanka culumma committee yaa loo soo gudbin karaa culimada chairmankooda loo soo gudbin karaa Sheekh Budul waa 24 ruux 24 gabdhaha waa in lagu soo daro dadka aqoon-yahanka waa in lagu soo daro cid kasta 8deeda gabdhaha waa in lagu soo daro waa in lagu soo daro ragga dhalinyarada oo aqoon-yahanka odayaasha cidda oo talagalkeena waa in lagu soo daraa taariikh 14 intaan la gaarin waa in la soo xareeyo dadka iyaga shirka u horeeyo oo 39 shirka u horeeyo oo ay fariisan doonaan waa taariikh 20 May ambition ku jirno waxa waaye caleema saarka integrationka committee-da iyada ee waaye meesha ay ku shiri doonaan waxa loo malaynayaa inay noqon doonto Wajeer South meel kamid ah hawaasooyina noqota banaanay noqota kursi noqota ama Wajeer Town noqota midii loo arko in ay ugu habboonaansho badan tahay dhulka hadda uu qabow yahay roob baa ka jiro magaalo aan dad hadda aan dhaweyn karin iyo geedo la hergala aan lahayn malahan u malaynahay marka intaas aad ogaanaysiin dadka islaamka si fiican ha loola noolaada wadanka si fiican ha loola noolaada walaalaha ha la soo dhaweysto gacan ha laga raadsado dhulka ma kala laho calaamad ma kala laho dhulka waa la isku leeyahay wax kasta waa la qaybsani dadka inaad hor kacdaan oo siyaasadda dadka walaalka ee aad ku soo dhaweysaan ayaa la rabaa go'aankii ka soo baxay waa intaas waa 5taas qodob ninkii u baahan uu heli karaa in 5ta qodob sidooda loo qaato ayaa la doonayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.